Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan bahda ku xiran janaalka Midsal. Akhiirtan aad ku jeclahay soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa cashir yar oo ku saabsan Python. Yacni xiisadii hore waxaan soo qaadanay cashir ka hadlayay toroidal ama sameynayay vibration cycle ama aan uga magac darnayba application ku salaysnaa corona shape qaab loo sameynayo coronavirus oo kale. So applicationada kale waa ka duwan yahay. waxaan sameyn doonaa wax loo yaqaano structure ama qaab waxaan sameyn doonaa saacad oo kale inaan sameyno. So applicationkan horta intaanan sameynin ka hor waxaa muhiim ah inaan naqaano wax loo yaqaano degree maxaa la dhahaa waa heerar. So marka waa inaan dhowr shay inaan naqaano muhiim u ah. Tusaale ahaan waxaa kamid ah waxyaalaha loo baahan yahay inaan fahanno waxa loo yaqaano degree ama axis degree x iyo y saad u taqaano. sidoo kale degreega markii laga hadlayo rotation uu sameeyaa rotationka inaan naqaano. saacadda markay shaqeynayso anti-clock iyo clock anti-clock saacadda tusaale ahaan markay saacadda shaqeynayso qaabkay u shaqeynayso inaad taqaanid waaye. anti-clock clock may u shaqeysaa inaad kala taqaano waaye. qaabka saacadda midig may u shaqeysaa mise bidix u socotaa inaad halaas dhan inaad taqaano waaye. sidoo kale inaad taqaano waa muhiim throttleka sida loo install gareeyo taasaa muhiim ah. yacni cashirada hore waa kusoo qaadanay cashirkaana waan ku qaadan doonaa insha allah. So cashirkan wuxuu ka hadli doonaa saan horey ugu sheegay algorithm. waxaan sameyn doonaa algorithm wax laga wada wax kale maaha waa yacni qaab yacni waa tusaalaan laba lagu daray labo it means waxa soo baxaayo qaabkaas processkaas loo maraayo waxaa loo yaqaanaa algorithm. So marka waxaan sameyn doonaa algorithm ama program ku salaysan clock ama saacad ku salaysan. So see loo sameynaa barnaamijkaas maxaan u baahanahay horta muhiimada koowaad waxaa waaye waa inaan fahmaa wax loo yaqaano degree. tusaalaan chromekan soo kicin doonaa wax yar inaan sample isku dardarnaa rabaa dhib yaa lii arkin. waxaan rabaa inaad si fiican u fahantaan. So waxaan leenahay degree 90 degree oo kale tusaalaan 90 oo kale interandaya. Okay degreega markii laga hadlayo fiir meesha waxaa ujeedaan 90 degree markii laga hadlayo tusaalaan fiir hadda 360 degree waxaa waaye cycle dhammaystiran waaye. 360 waa cycle dhammaystiran. one complete cycle markii la sameynayo waa cycleka markii la sameynayo waa 100 and 360. So qaabka uu angalka u sameysmaa tusaale ahaan xoogo internetka culus. Okay kan aan kasii baxno waxaan sii fiirinaynaa. okay fiir meeshan angalkan oo ujeedaa waa 90 degree. xisaabta xoogo inaad taqaano muhiim waaye oo angaliska loo sameynayo xaglahaas ay u sameysmaan oo kale. xagasha dhammaystiran markii laga hadlayo waa 360. tusaale ahaan xaglaha waa kuwan. tusaale ahaan xagal dhammaystiran waa 360. markii xagasha half ka maqan tahay waa 270. xagasha markay laba meel yani markii afar meel loo dhigo laba meel markay tahay waa 180. xagasha markii afar meel loo dhigo meel waa 90 degree. qaabka u sameysmayso saacadda aan rabno waxaa waaye noocee waaye digital miya mise analog waaye. digital waxaan leenahay tusaalaan digital digital clock haddaan dhahno qaabkee waa digital clock sound waa digitalka laakiin analog waa waxaan u baahanaa anaga sax. okay analogaan sameynaynaa digitalka mar kale aan sameyn doonaa insha allah. analogaan sameynaynaa hadda maadaama angale soo gasho waa kan. tusaale ahaan fiir marka saacadda markay saan tahay waxaa ujeedaa waxay ka bilaabanaysaa meeshan 12 intan waxay yani 6 ilaa 12. so fiiri angalka uu sameynayo waa right angle yani angalka uu sameynayo waa complete angle ande يعني right angle ma laakiin cyclekan uu sameynayo waa complete angle dhammaystiran waa xagal dhammaystiran waa. xagasha dhammaystiran waxay sameysaa cyclekaas oo noqon doona 360 degree ama 360 degree. so waa ujeedaan cycleka. so saan oo kale u sameyn doonaa waxaan sameyn doonaa midaan hadda yar oo caadi u shaqeynaysa yar waa saacadda. sidoo kale midaan oo dheer oo balaaran waa minutka. tusaaleaan midkan oo qaliirka ahna waa secondka. so waxaan u baahanaa 3 variable mid lagu qaban doono hourka sidoo kale mid lagu qaban doono minuteka iyo sidoo kale mid lagu qaban doono secondka. so aan sii guda galno.
waxaan soo kicin doonaa wax loo yaqaano Visual Studio Code kan programkii hore waaye haddaan tijaabino programkii hore aan ka shaqaysiinin waaye kan ma u baahnin so waxaan leenahay folder cusub aan samaysanayna open folder aan leenahay open folder markaan dhahno meeshan waxaan ku qori doonaa new folder waxaan u bixin doonaa testy ama waxaan u bixin doonaa mutis help oo kale waxaan u baahannahay kaliya mutis help aan u bixin doonaa laakiin adigu waxaad rabtaa u baxsan kartaa folderka markaad samaysanaysid kadibna waxaan leedahay select folder folderka dooranaysa so folderka markaad dooratid oo saas u doorato select folder aad dhahdo waxaa ku soo baxaya folderkii oo diyaarsan so wax ma ku diyaarsan wax kuma jiro kan waa iska tiri kartaa welcome in waaye soo dhaweyn waaye waa ka bixin kartaa so waxaa leedahay intaad tagi doontaa new file kadib kanaad ku dhufan doontaa waxaan u bixin doonaa mar walba waxaan u baxsanaa testy.py oo u taagan python extension py okay codekeena haddaan bilaabeyna so codeka markaan bilaabeyno waxaan aan isticmaalayno waa trudalkan wuxuu u baahan yahay in lasoo import gareeyo markii la joogo pythonka wuxuu yaqaanaa moja ama model يعني importation model لكن package الله يعني عاديا بpackage الله waxaan la soo import gareynaa waa package waxyaalo isku xiran oo classes functions leh oo u baahan in la import gareeyo la soo import gareeyo so anaga markii la joogo python waxaan u naqaan aan u fahmi doonaa inuu yahay model so waxaan leenahay model so modelkan soo import gareynaa wuxuu noqon doonaa import waxaan soo import gareynaynaa wax loo yaqaano model maaha yani waxaan aan soo import gareynaa waxa loo yaqaano model laakiin waxa aan import gareynaa waxay noqon doonaan trudal modelka loo yaqaano trudal inuu model yahay waxa ku cadeynayso markaad saarto falaarta fiiri wuxuu ku dhigi doonaa model trudalka model ma qeexitaankiisana meeshan uu kugu cadeyn doonaa so taas waa ka gudbeynaa import markaan dhahno sidoo kale waxaan leenahay marka window waxaan rabaa variable oo shaashada magac igu soo qorayo tusaalahan kor in ciwaan uu yeeshaan rabaa si aan u sameynaa tusaalahan waxaan leeyahay win ama variable aan qabsanaa oo wn oo window taagan aan qabsanaa kadibna waxaan leeyahay trutal waxaad ka dhigan kartaa variablekaas aad qabsanaysa trutal.screen shaashada trutalkan ka dhiganaa so enter aan leenahay control s okay screenkan aan isticmaalo mar walba waa inuu capital letter ahaada saad u taqaano screenkaas waa inuu capital letter ahaada so sidoo kale waxaan leenahay when dot ama w variable when aan qabsaday dot bg color maxaan ugu sheegnay waa background color inuu noqdo wax loo yaqaano black waxaan jeclahay black inaan isticmaalo so waxaan ka dhigi doonaa black so black markaan ka dhigno control s aan leenahay enter aan leenahay so haddana waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano waxaan ugu soo kordhay marka wax loo yaqaano width awal ma qaadan jirin widthka laakiin hadda waxaan ugu soo kordhay width sidaan u sameynaynaa widthka waxaan leenahay when ama winkaas oo windowgaas oo la mid noqon doono dot setup ahaan markuu soo muuqanayo background ahaan usoo muuqanayo waxaan ka dhigi doonaa qaabka anaga rabno waxaan leenahay width waxaad u jeedaa meeshan widthka marka la siinayo inta ku saddex marka dhadid waxa siinaysaa width integer ha ahaado widthka aad siinaysid sidoo kale integer heightka aad siinaysid so widthka aan siinayo wuxuu la mid noqon doonaa aan leeyahay 600 oo la mid noqon doonaa kadibna waxaan leeyahay comma sidoo kale waxaan siin doonaa height oo isna noqon doona wax loo yaqaano 600 labada dhinac inay isla ekaadaan u baahanahay kadibna control s aan leeyahay so aan test gareeyo programkan widthkiisa iyo qaabkuu yahay so markaan test dhaho ama rankan aan ku dhufto buttonkan ay ran ku qoran tahay waxaa loo jeedaa meeshan waxaa ka qaldanaa lahay width waxaa ka tagtay h okay control s dheh okay hadda kici marka okay wuxuu diidoyaa markuu soo kaco uu ka baxaa so ugu bixin waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano loop aan isticmaali doono wuxuu noqon doonaa loopka aan isticmaali doono inaan dhahno win waa ugu dambeeya mar walba win waxaan leenahay win dot main loop markaan main loop dhahno bracketkan soo xiri doonaa kadib waxa aan meeshaas gelinayno main loopka waaye so win dot main loop mar walba yuu ka bixin meeshaan la wada min ka bixin waxaa isticmaali doontaa wax loo yaqaano win main loop aa isticmaale screenka ma dhaqaaqayo mana ka baxayo hadday laakiin wuxuu sameynaya uu soo muuqanaya wuuna ka baxaya laakiin hadda waxaan isticmaalnay win dot main loop ma ka bixi doono insha Allah so marka kan aan kasii ka baxo waxaan sii wadi doonaa programka so marka programka aan sii wadaayo maxaa loo baahan yahay so maxaa liiga rabaa inaan sameeyo waxa liiga rabo maxay yihiin waxaan u baahanahay inaan sameeyo maxay yihiin so waxaan ka bilaabi doonaa marka wax loo yaqaano importationka markaan bilaabay waxaan ka bilaabi doonaa wax loo yaqaano title inaan u sameeyo ciwaan inaan u sameeyo ciwaanka aan u sameynayo muxuu yahay tusaale ahaan hadda meeshaan markaan kiciyo aan dhaho okay aan run dhaho tusaale ahaan
Python tutorial graphics u dhow amjida Python tutorial ama tutorial graphics so meeshaas aan rabaa inaan ciwaan u bixiyo ciwaankaas aan u bixinayo muxuu noqon doonaa waxaan leeyahay win.title ciwaanka kor ka soo muuqan doono default ahaan wuxuu yahay tutorialka graphic Python ku lagu dhex isticmaalo so waxaan u bixin doonaa waxaan leenahay mutis help clock okay mutis help clock aan u bixin doonaa control s aan leenahay so markaan dhaano control s waxaan fiirin doonaa marka qaabku noqday kow waan kicin doonaa run aan leenahay fiir meeshaan waxa ku soo qorantay hadii aad u jeedid aan weyneeyo so meeshaan waxaan ugu jeedaa inay ku soo qorantay mutis help clock so waxaan dhihi doonaa marka hadda waxaan bilaabi doonaa marka variable in aan sameeyo kan hadda waxaan sameeyay waxaan diyaarsaday backgroundkii ay wax ka soo muuqan lahayn so waxaan rabaa inaan sameeyo wax loo yaqaano inaan sameeyo tusaale ahaan circle-ka inaan sameeyo circle-ka markaan rabo inaan sameeyo circle-ka aan rabo inaan sameeyo maxaa waay waxaan rabaa inaan sameeyo circle-kan inaan sameeyo aan rabaa wareegan oo saacad inaan sameeyo si u sameeyna okay meeshaan waxaan kugu qoraa waa ku sii diyaarinaa waxaan ku leeyahay hadhow si aad ugala degto GitHub-ka description-kan soo dhigi doono waa ku magacaabaa waxaan isticmaalaynaa comment marka la isticmaalayo la joogo Python-ka yani waxaa la isticmaalaa hashtag marka la joogo intaan ku isticmaalayo hashtag aan isticmaalaynaa hashtag-gaas aan isticmaalayna wuxuu noqon doonaa creating waxaan abuuraynaa ama creating in la abuuro waxaan abuuraynaa wax loo yaqaano circle-kan abuuraynaa ama circle clock okay circle clock aan abuuraynaa so circle clock markaan abuurayna maxaan sameynaynaa waxaan ka bilaabaynaa wax loo yaqaano ben waxaan qabsan doonaa variable ben la dhahayo oo la mid ah variable-kan wuxuu la mid noqon doonaa wax loo yaqaano turutal function-ka ku jiro okay wuxuu la mid noqon doonaa turutal function-ka ku jiro sidoo kale waxaan dhihi doonaa ben hide turutalka khari kadib intaan leenahay sidoo kale waxaan dhihi doonaa ben.speed benka speedkiisa ama xawaarihiisa speedka xawaarihiisa waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan okay ben.speed waxaan ka dhigi doonaa xawaarihiisa okay waxaan ka dhigi doonaa 0 markaan ka dhigno waxaan leenahay enter sidoo kale waxaan sameyn doonaa wax loo yaqaano ben size cabirka yani qalinka wax lagu sawiraayo waxaan ka dhigi doonaa 3 okay ben size waxaan ka dhigi doonaa 3 kadib waxaan leenahay enter so halahan dhan wuxuu ku diyaarsan yahay waa waxyaalo diyaarsan kaliya waxaa laga rabaa adiga inaad isku fahansiiso oo aad isticmaasho so ben.size-ka markaan ka dhigno 3 maxaa liiga rabaa marka hadda halaan waa sameeyey so waxaan sameynaa marka control s aan leeyahay control s so hadda waxaan magacaawday turutalkii iyo benkii aan magacaawday variable creating circle-ka aan magacaawday laakiin weli wax function mala qabanayo so function-ka si loo qabto waxaan sameyn doonaa inaan function magacaawo function declaration aan sameynaa ama defining function inaan qeexo so function-ka aan qeexayo aan magacaaway wuxuu noqon doonaa marka waxaan leenahay div waa definition function definition function-ka ama class yani waxaan isticmaali karnaa function-ka inaan magacaawno so magacaan function-ka u bixinan wuxuu noqon doonaa draw function name-ka waxaa la draw sidoo kale drawgan waxaa ku jiri doono benka drawgan waxaa ku dhex jiri doono wax loo yaqaano drawgan waxaa ku dhex jiri doono benkaas oo ah waxaan wax qabanayo function-kan wax qabanayo aa ku dhex jiri doono so laba dhibcood aan leeyahay so laba dhibcood markaan dhaho means waxa waaye function-kan draw la dhahayo wuxuu sameyn doonaa wax walba oo meeshan lagu soo muujiyo tusaalahaan turutalka wuxuu ka dhigi doonaa turutalka uu isticmaali doonaa sidoo kale turutalka uu qarin doonaa sidoo kale speedka turutalka saas uu ka dhigi doonaa sidoo kale ben size-ka wuxuu ka dhigi doonaa 3 benkaas saasaan u declare gareyn so interaan leena so markaan enter dhahno hadda waxaan sameynaynaa marka inaan shaqo qabano shaqadaan qabanayna waxaan leenahay inaan ku magacaawno ben define waa qeexaynaa function-ka so waxaan leenahay define.up it means qalinka it means kor geey define.up يعني بينka waxaan ka dhigi doonaa kor in la geeyo bin.up aan leenahay define.up maaha bin.up aan leenahay so markaan dhaano kadibna waxaan leenahay bin.ben ama ben qalinka .go to horaan usoo sheegnay waa in direction uu aado directionka uu aadayo laba meel uu aadaa waa x axis iyo y axis hore waxaan u sheegnay initialka meesha uu ka bilaabanayo tusaalahan markii la gelinayo datada go to meesha ugu horeysa uu ka bilaabanayo waa x axis
meesha ugu dambeyso komada markii la raacsiinayo waa y axis so x axis keena mar walba waxaan ka dhigaynaa 0 okay sidoo kale meeshaan waxaan isticmaali doonaa 210 oo y axis ah kadib waxaan leenahay enter so markaan enter dhaano waxaan sameynaa go to aan sameynaa sidoo kale waxaan sameynaynaa ben dot waxaan leenahay set heading ama set heading yani kor waxaad ka dhigtaa 100 degree centigrade يعني centigrade ما dhigi karno centigrade ma ku xisaabinayna sorry waa ka xumaa يعني 100 degree aan ka wadaa centigrade marka xisaabinayna waxa maleyna يعني heer kul marka la xisaabinayo hadda waxaan xisaabinaynaa angle xagalan xisaabinaynaa so marka centigrade ma dhigi karno waxaan dheenaa marka degree 100 degree aan leenahay so marka 100 degree markaan dhaho sidoo kale ben okay ben color يعني colorka uu noqon doono يعني ben colorka uu noqon doono tusaale ahaan benka wax lagu sawiraayo haday waxaan dhahnay backgroundkayga ii noqdo black laakiin hadda waxaan qaban doonaa ben colorka inuu noqdo green so green aan isticmaalayna ama orange waxa aad isticmaal laakiin green ah qurux badan markii laga hadlaayo graphic user interface ka python-ka ama meel walba shaashad madow taas oo ku qurux badan control s aan leeyahay green and die sidoo kale waxaan sameyn doonaa wax loo yaqaan ben.bend down yani ben.bend down يعني بينك هداي waxa way kora loo waday hadana hoosa la keeni doona yani hoosa loo dhigi doona ben.bend down marka loo yani meeshu joogsan doona kadibna ben.circle ben circle ka aan sameynayno wuxuu noqon doona marka ben.circle okay ben.circle degree aan isticmaalayna centigrade kan aan wado maxaa way yani waxaan isticmaali doonaa degree so waxaan leenahay 210 so 210 markaan dhaho enter aan leeyahay so 210 macnaheedu maxaa waa 210 macnaheedu muxuu yahay inaan faahno taasna muhiim waa 210 macnaheeda waxa uu yahay inaan faahno waa muhiim so 210 wax kale ma aha in yani benkan uu tago 210 degree yani inuu ka soo muuqdo tusaale ahaan wax kale ma sameyn doono circle-ka markuu sameysmo 210 degree uu sameynaa circle-kan wuxuu sameynaa 210 degree so aan fiirina marka qaabku u shaqeynayo waa kicin doonaa insha Allah haduu error jiro error soo muujin doona okay maxaa khaldan okay waa fiirinana waxa khaldan okay maxaa khaldan okay maxaa ka khaldan oh I'm so sorry waa ka xumahay waxaan magacawnay the draw and function kana magacawn يعني function-ka in la magacaabo waxba ma dhibayso يعني function-ka inuu shaqeeyo la rabaa ma function-ka soo u shaqeeyo maxaan sameynaa waxa loo yaqaan calling function inaan function-ka waco so hadda waxa error-kana haasto waxa waa function-ka ma wixin so function-ka soo la waca wax kale ma sameynaysid meeshan marka enter dhaadid hadaa rabtid definition-ka meeshan aan ku waxay marka function-ka so function-ka aan wacay muxuu yahay waa draw waxaan leeyahay draw function-ka la dhahayo benka ku jiro iwa so waa la wacay kadibna control s aan leeyahay kadibna waa ran gareena hadii inuu shaqeynayo in kala fiirina so hadda waa ujeedaa waa shaqeeyay laakiin meeshaan fiiri waxa jiro error-kaas oo jiro waxa waaye meeshaan uu zaidka uga baxay wax kale ma aha waxa uu uga baxay tusaale ahaan hadda error-ka waxa jiro qaladka jiro waxa waaye meeshaan hadda aan isticmaalnay set heading waxa laga rabaa 100ka meeshaan ka dhigno waxaan u baahanahay 180 ka dhigno see lagu dhigaa 180 waxaan ugu dhigaynaa waxaan leenahay 180 control s so 180 markaan dhaano control s kadib waxaan leenahay kan waa joojinaynaa waxaan leenahay jooji kadibna waan kicinaynaa insha Allah so waa kicinaynaa so marka waa kan oo jeeda centerku imaade so markuu centerka imaado waxaan rabaa marka saacada waxay leedahay dhibco ilaa 12 dhibcood ay leedahay 12 kaas dhibcood oo waaweyn ah so 12 kaas dhibcood se u muujina inaan sameeyo waa loop oo 12 kaas dhibcood sameynayo waxaan ku qaadan doonaa videoga xigo insha Allah intaan video lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh